بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي دمان ملك سودنا الدافيد كجبتان وحاد الله نبت قليدا نحرس إلى دوشينها أهاتو جمعة وناكسن إلهي waxaan weydiisanaynaa fadligeeda barakadeeda inuu jimcaha nawaafajiyo nin kastana muraadkiisa macsida ilaahay ku jiro inuu ilaahay siiyo ilaahay waxaan noo weydiinayaa adoon aqri inuu ilaahay na liibaano dambigeena hore dambigeena dambana ilaahay inuu dhaafo waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu xusnul qaatuma ilaahay noogu dhameeyo أهل الذكر وقاصة إليها نقدين بعد السلام أحبابي بعد الدعاء وحنربا أحلى قصص كيني برنامج كيني قصوين كيني واي قصص والعبر قصص والذكر إن شاء الله تعالى بإذن الله كريما مركز تاني قبل صومالي هذا إلى قيب صدان وأيدين صو الشيخ إلهي بركايو ننكس تاني إلهي سبحانه وتعالى بقركاي قيركو هلاي نمعضو هلا الله أزايدين مركز برنامج كينان وأنتو وحو قصايا الصبركة إيوه inta ilmo raadis oo dhan insha Allah la qaybso gabar kasta oo ciyaal raadinaysa gabar kasta oo murugsan ciyaal insha Allah qisadan saani ku bilaabanaysa waxay tir abaayo anoo yara waxa la siiwil wadaadkii marka waxay tiri laba cunug oo degdeg ah u dhalay ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxay tiri uura qaaday oo iga soo dilmay urkalan qaaday oo iga soo dilmay qalaas dilmada ma qaadin waqtigu iskuray sanadiyadu way iskureen maalmihii way iskureen bilihii way iskureen waxay tiri 9 sano ka soo wareegtay 9kaas sano wax ma dareemi jirnay dhahday markii dambe waxaan keenay dhahday inaan is iraahdo maxaa uur u yeelada ina ilmo raadiyo waayo waxay tiri wax odagayga waxay tiri xaasas kale oo leeyahay sanad kasta loo dhalaa aniga barbalenka ay haystaan marka waa baxay dhahday maamo kasta u tag oday kasta u tag oo dhakhtar ah qof kasta u tag oo dhakhtar oo ilmaha qoseeyo iyo sida ilmaha la yiraahdo waa aragtida waxa la iska dhahaa gubida u baahantaa adiga waxay dhahday meelo badan aan tagay ilmo saa u raadiyo waa waxaan go'aansaday tir markii isku beero ilmihi odagayga u tag waxaan ku yiri tir aboo waxaan rabaa inaan ciyaalka isku beero ما يقولي كام ميجا أقولانه وحائري ترى قرشك أنا لبحاء أنا قرش كي جوته واسكو بيرنا نك ما يقولي إلا هير فاميل كي جرته وأهل كي قرابة جرته وحي ترى طلقي كفريستان لبعض النعب حال يقولي ترى ما عنده صبر نينكا وركي سيال فريسو وابحيد هذا waxay dhahday ilaahay subxaanahu wa ta'ala boqorkaan bari ilaahu diidmada odagayga oo diiday qalbigayga dhaawaxa iga gaarsiinin dhibaato iga gaarsiinin sabar fiican ay la timiday ilaahay subxaanahu wa ta'ala boqorka hay bariday salaadaheedii dukatay macnaha ilaahay quraanka wastiicino bisabr wa salaad wada sabarkii salaadii kaalmeysatay wardiyay bilowday wardi hore u dikri jirta abaay oo ahli dikri u aheeday laakiin waxay dhahay suuratul baqara bilaabay suuratul baqara bilaabay ina akhristo laba maalin aan ku dhamay jiray markaas ayada ahayd tir oo dhibaatada ay dhacayso oo isqabqabsiga dhacay tiri xeedka ahaa waxay dhahday bisha dhamaatay bisha markay dhamaatay dhigmigu dhacay waxa laga qabtay goos aad laga qabtay tiri xanuunsaday dhakhtarkan tago iska soo saaray gooska marka iska soo saaray daawooyin la isoo qoray daawooyinka marka qaadamaga isriitiro Allah daawooyin ha isku qaadanine bal horta dhiig xaq ka baxay bal dhakhtar tago isoo baar hada isbaar uuraan yeeshtay ma sha Allah tabaaraka rahmaan marka waxay leedahay abaayo barnaamijkan kan yaa makan kan fi samaan maahan sheek xariir maaha waxa waaye yaqiinta qofka inuu la yimaado yaqiinta markasta yaqiinta inuu ku gubaabiyaa yaqiinta la imaam waxa ilaahay si niyad ah ugu sugtid waa ka helaysaa si niyad ilaahay uga sug teeda kaleetood qofka muslimka ah waxa laga rabaa markuu wax waayo rabbigiis inuu aado daawo iyo dhakhtar waa kaalmo laakiin ishaarada iyo tawfiiqda ilaaha ku waafajina haday daawo kugu jirto inaad ku daawoodid amba xanuun ha ahaato amba ha ahaato ilmo la'aan ilaahay subxaanahu wa ta'ala boqorka hidadu kugu soo dhiibaa ama
adoona inta lagu soo maray sida gabadha abaaye oo beerid aadin oo intaas umad inta u tagtay waxaan u tagin ma lahayn tiri oo ilmaha xaggooda loo aado u tagtay ka soo qoosatay ogow markay fariisatay ay salkeeda dhulka si rasmi u dhigtay ee ilaahay isku dhiibtay ay waxashan si niyada ilaahay isku dhiib abaaye waxay tiri marka ha ka quusanina ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka raxmadiisa waxay idin soo fartay inaadan gabdhaha uurka aan qaadin inayna quusanin farxadeeda lama tiri koobi karo hadeertaana weli uura leedahay weli ma aysan dhalin waa qiso cusub anaa jeclaystay inaan degdeg usoo diro because gabdho badan ay la soo xiriiraan oo ciyaal raadis ah waxay dhahday waxaan xasuustaa tiri ramadaanka 10 dambe waxaan idinkugu soo qori jiray tiri commentiga abaayo ii soo duceeyay uuran rabaa inaan yeeshto ilaahay ha ii sahlo wallaahi كل قبل بدن أو وحاجران ما شاء الله تبارك الرحمن هكذا إذن كلا يا إذن أركي لها لبدان إذا كلهم كلا مع قبل الدين تو ذكر دكنا وحرن وما شاء الله هالكاس إله درسك جعلنا dadku u duceeyaan commentiga u soo galaan u duceeyaan gabar kale abaaya hadda soo laba gabdhood abaaya actually wiil gabar waxay tir wiil iga xanuunsan abaaya hal igu duceey cunuga iga xanuunsan gabar kale waxay tir wiil yar oo 16 jir xoogay ma taqaanaa amar diida igu wado insha Allah ta'ala bidna Allah karim abaaya macaan taqaali adigan waxaan aan kugu advice kugu siinayaa inaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka saqda dhex usoo kacdid ilaahay barisid magaciisa ku barisid hebel inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka hay ku hanuuniyo ilaahay inuu waxa haduu dib ku jiro dibkaas ka baxo inuu ilaahay gabadha kale abaayo cunuga ka xanuunsan yahay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka aydan saasoo kale tahay u bariso xilliga dambe usoo kac ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka hay baris niyado yaqiin ahan inuu ilaahay ku siinaa u aamin mideeda kale toodna insha Allah ta'ala bidna Allah karim gabdhaha walaalahay igu xiran waxaan leeyahay gabdhahaas labadaas gabdhood commentiga ku soo qoray cunuga 16 jir abaaye iga waxay tiri mashaaqib iga mid gabadha kale cunuga iga xanuunsan labadaba gabdhood ha loo duceeyo si niyada ugu soo duceeyo insha Allah hadda u duceys ugu adigan ducaas meel ku taala waa waxa dhigata keeda dhigata waay malaa'iga ku duceynayso adigana u duceey ilaah baan ku dhaartay wuu duceynaa dadka walaalaha ramadaanti bab mar kastaba walaal isu duca soo dalbado markaan ma aragtay aan keligeyga ahay ducada waa ku daraa marka insha Allah ducada aan ku darno ilaahay waxaan weydiisanaynaa dhammaanteen inuu ilaahay na xifdiyo awlaadan leena awlaad Allah noo xifdiyo inta xanuunsan Allah caafiyo inta kurbaysan aaba xanuunsan Allah caafiyo inta hooyo xanuunsan Allah caafiyo inta ilmatin eejir ku dhiban ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka ciyaalka Allah noo soo hanuuniyo ilaahay ha noo xifdiyo intii ma aragtay ilmo yar haysata Allah u xifdiyo intii ma aragtay dhibaato kale tad haysata Allah subxaanahu wa ta'aala boqorka ka dul qaado inta awlaad raas awlaad qeyr qabto barakeysan duriya saalixa ilaahay ku israaqo inta ma aragtay adiga kurbada waa kala nooc nin kastaba adaa u korbiyo raxmaano adaa caalamul qayb nin kastaba muraadkiisa macsidaada ku jiro ilaahu si qaybkan iskugu soo duceeyno walaashin filsanka khayrkeeda la jecel waxaad ilaahay khayr baraka jimca wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh